first goal ka meeshaan imanaya laga tagin sidoo kale asxaabta waxay idinku bishaarinayaan maadaama companygayga aan dib u bilaabo in aan ka kiciyo from the ground inaan sameeyo waxyaabo shaqo abuur ah qof walbana yaanu niyadiisa u sheegin inuu binary and digital oo kaliya ka shaqaysto waxaa jira in ka badan binary and digital haddii aad aragtay cabdiqani oo mostly binary and digital ku gareynaya I'm not only binary and digital trader anu waxaan isugu jiraa dhowr trading baan sameeyaa bitcoin miner baan ahaa cryptocurrency my bitcoin it's more than 20,000 haddii minimum ka dhigno waa hal bitcoin mostly usually wuxuu kasoo bilaabmay lacag yar oo ku dhow ilaa 500-400 one mine gareeyay like waxaan isku dayay inaan shaqeeyo so shaqada aan idin sheegayo ama hadafka aan idin sheegayo it's more than just inaad online trader noqoto lacag samayso kadib aad iska raaxaysato it depends waxa ku depend on gareyn karaa millions walaalahaya beri u baahan inay mustaqbal yeeshaan maybe shirkadaad adigu asaasto inay intaasoo qof ay ku anfici karaan so totally waxaan bedelay schedule-ka lagu shaqayn doono maalin walba focuska waxaan saarayaa sidii aad idinku heer u gaari lahaydeen sidoo kale waxaan saari doonaa inaan imtixaanaad idin diro ku saabsan trading-ka kuwaasoo ah practical iyo theory imtixaanada ma aha kuwaan anigu idinku qiimeynayo oo aan anigu idinku kala maamuli doono si aan idinku kala xukumo waa kuwaad idinku naftiina ku maamushaan ama aad ku xukumi doontaan for example markaad meeshan soo galaysa niyadda kugu jirta maxay tahay are you here to gamble no definitely inaad shaqaysataad u timiday laakiin wixii aad waday baa u ekaanaya gambling maxaa ugu ekaada why does it look like a gambling waa su'aal waxyaabaha inaad naftaada ka bedeshaad rabtaa so if you can change yourself change it with me maxaa aniga i bedelaa adigana iska bedeli kartaa haddii maybe aan kuu sheego sida aan u fikiro maybe adiguna inaad si ka duwan u fikiri karto kuma sheegaya anigu inaad sideeda u fikirto laakiin waxaan kuu sheegayaa si ka duwan sidaada inaad u fikirto waa talo that is my motivation haddii adigu tiraahdo maanta lacag imsaaysataa kuu sheegi maayo because I'm more than just one regular person ku hamiyaya inuu just qabto waxyaabo yaro simple I do a lot of things I make a lot of things on my mind every single day maalinta keliya waxaa laga yaabaa inaan la soo galo suuqa $300 laakiin hamiga aan maalinta ku dhamaysanayahay inaan 30,000 gaaro weeyaan of course 30,000 miyaan gaadhaa no ma gaadho miyaan ku dhawaadaa no maxaa sameeyaa laakiin at least 300 baa ay dhaqaaqda at least 300 way samayn kartaa that's the perspective so waxaan kuu sheegayaa mostly usually maxaa naftaada adiga motivate gareeya ha ku motivate gareyn naftaada dadka kale agtooda ha is odhan qofkan u xaqiiji qalab yacni qofkan ku aamini waaye ku odhan waaye yacni waxaad qaban karta maaha tus inaad waxay qaban karta tahay no that is not how it works sidaa uma shaqayso noloshan waxay ku shaqaysaa qof walba oo adduunkan bedelay noloshan waxay ku shaqaysaa qof walba oo adduunkan bedelay he started from the bottom markuu hoos ka soo bilaabayay muxuu ku socday of course different perspective ku socday dadku sidee u arkayeen different bay u arkayeen qof waalan bay u arkayeen laakiin maanta sidee buu yahay maanta xaguu maraya usually dawaad arkaysaa kombaniyadodii they worth more than just hundreds of billions of dollars waad garan kartaa adigoo batee waad xaqiijin kartaa so adiga maxaa kaa xiga inaad intaa iyo in ka badan every single day samayso okay motivka aad meesha la soo galayso muxuu yahay maxaa ku motive gareeya maxaad se istiraahdaa waxaa markaad qabato you can do it like for real maxaa adiga ku motivate gareeya maxaad istiraahdaa waad qaban kartaa at least waxaad ka bilaabaysaa maanta kale hadaf baad la soo galaysaa hadafkaagaad isku daysaa inaad xaqiijiso hadafkaagii maanta ma xaqiiqsamin
laakiin markaad soo kacdo hal su'aal naftaada weydii su'aashaas oo ah maxaa maanta kuu qorshaysay inaad qabato that's it that one question naftaada weydii okay wixii maanta kuu qorshaysnaa iyo wixii kugu dhacay xaggayga yaalaan meeshaad doonto lacag ka samee maanta inaad lacag samaysaa niyadda kusoo kacday waad samaysay ama waad ku dhaweysay markaad seexanaysana hal su'aalu naftaada weydii maxaa maanta kuu soo qabsoomay those two questions they will help you believe me way idin caawinayaan markaad subaxa soo kacdo waxaad tiraa maanta maxaa kuu qorshaysan berito marka aad caawa seexanaysana waxaad isweydiisaa maxaa maanta kuu qabsoomay that's it so you'll see the difference anigu kuma oran karo horumar baan gaaray because I'm not maxaa laakiin sabcan waxaa kuu muhiima ama shay muhiim ah inaad mar walba ku dadaasho sidaad adigu naftaada un isbedel ugu sameeyay that's what matters waxa kaloo dhan ka baxa so cashiradeenan haddii aadan fahmin ku celcesho haddii aadan fahmin adiga iyo team kala samayso wada fahma kulli way jiraan asxaab ku jirta meeshaada ka joogta isku day anigu waxaan soo wadaa the plan for the next month is weliba next weeks waxa weeye tournaments baan idin qabanaya anigo waxaan qabanayaa tournament qof walba practice accountkiisa ku samaynayo limit buuna gaarayaa ninka ugu traderka ugu fiican ugu managementka badan uguna qiimo bateen herko he will worth like $100 every single week qofka guuleeya macnaa u sareeya every trade he will win $100 kaas maxay ka yimaadeen because of like was some kind of competition at least maybe waxaas tirahdaan dadka mostly traders ku lacag bay dadka ka qaataan oo waxay yiraahdaan like cashirka haddaan doonayso in aqoonteeda ku faa'iideeyay bay I'm not okay I'm here inaan idinkeedin matalo beritoole waxaa laga yaabaa boqolaal idinkeedin ka mida at least in aniga fiicnaadaan at least I know I'm sure definitely laga badi I'm ready for it anu waxaas wax case meesha ii yaala maaha caseka meesha ii yaala waxa weeye make a future dadkaaga samee maybe tomorrow idinkoo dhan inaynu is anfacnaba so cashiradeeni aan u noqdo motivationku xagga ah inoo yar joogo cashiradeeni baan u yar noqonayaa last couple days waxaan soo qaadanay waxa loo yaqaano cashirada noocyadooda loo yaqaano money management so money management usually money management markaa samaynayso you have to do two things okay you have to do two things markaad money management ka doonayso waxaad doonaysaa money management-ka waxa weeye stop trading when you lose half your balance haddii maanta half balance-ka aad la timidee aad lose garayso georgi because of suuqo maanta adiga oo khibrad leh ayuu kuu gadinaya macnaha dhinaca kale kugu rogaya because of this is international corporations governments waxaas oo dhan baa isdhaafaya marka saamaynta isku bedelaya dowlad baa bedeli karta so haddii dowlad dhaqaalaha ka xidhato adigu maanta waxba kama qaban kartid trade walbood samayso so you have to know when to stop markaad joogsanayso waa inaad ogaan kartaa okay ani ila soo xidhiid asiyo coach ama professional traderkaaga aniga ahaanba adiga xaq u leedahay inaad la soo xidhiidho waayo waxbaa kaa qaldan ama waxbaa suuqa ka qaldan maanta oo anaguwa banaanka ka joogna so you have to like sorry groupka maanta suuqu saasuu sameeyey 4 trade baan khasaaray lacagteediina half baan cunay maxaan sameeyaa just stop trading there anaa ku sheeg marka anaa ku odhanaya dalag that's what markaad bedelayso okay invest your profits mar walba waxaad isku daydaa profitskaagun inaad invest garayso haddaad maanta $20 la soo gasho oo 10 ka mid a invest garayso 10kaasi marka horeba lacag inaad invest garayso u timid ay ahayd ma invest garaysay waxaad faa'iiday $9 kaasi ha noqdo traderkaaga xiga lacagtaad ku trade garan lahayd 20kaagii dollar gaara ku ahaato waxaa la dhahdaa businesska marka entrepreneur ka tahay
intuu saving ka fikir lahaa khasaaraha isaga ku imanaya ka fikiraa so intuu odhan lahaa businesska waan ku khasaaray waxaa ku filan inuu idhaahdo at least lacagtaan trade gareyn maanta profitkii unbaa khasaaray please screenkayga ha laga daayo qalinka lagu qorqorayo yaan la taabanin screenka haddii aydan fahmayn sida looga daayo screenada ha taabanina iska dhaafa daawada unbes why were recorded ashirku invest your profits not your capitalku muxuu yahay capitalku waa lacagtaad maanta lasoo gashay so you have to save that money ilaali dhowr lacagtaasi ha ku ahato ku fikir caqli waxaad istiraahdaa lacagtaadani ma aha lacagaad ugu talagashay meesha inaad ku khasaarto mar haddii iyadii kuu soo noqotay alxamdulilah dhigo $10 ha ahaatay okay capitalkaagu mar walba maskaxda priorityga sii so markaad capitalka siiso anigu maanta just $20 baan la soo galay waxaan withdraw gareeyay in ka badan $600 haddana waxa iigu jira accountkayga 199 bis ka maraysa because of I'm only trading my profits not my capital haddii $20 maanta khasaar lah xisaabta waxa ku dhici lahayd inaan ku xisaabtamo niraado maanta 20 kaliya khasaartay laakiin lacagtii profitkeed faa'iideeyo kale maxaa lagu xisaabtamay because of businessman wuxuu garanayaa in waxa uu iibsaday ama uu iibinayo uu ku khasaari karo so as you can see sessionku 15 minutes buu socon doonaa 15 minutes kana waxaan jeclaan lahaa insha Allah laga faa'iideysto so as I told you okay marka this is known to 90% of traders haddii aad u fiirsato professionals kan iyo dadkan aad arkayso maalin walba haddii aad u fiirsato waxa weeye strategy-gan bay isticmaalaan so markanaad video arkayso yar oo anigu aan soo dhigay oon si yaroo happy iskaga trade garaynaya I'm not happy horaan happy usoo noqon waaye today confidence baan ku trade garaynaya because of $10 intaan la soo galo ayaan $100 gaarsiinaya so nin $100 $10 ka samaynayaay micnaheegu ogow marka horuu lacag badan ka sameeyey bangigayna u taalaa so haddii maanta aan $100 oo kamid ah khasaare tradeskayga ogow inay already bangiyadeyda ii taalo lacag so I'm a trader risk taker baanahay kalsoonideydu way dhammaystiran tahay kalsoonidaas waxay ka timiday lacag $40 $300 waxa ugu yaraan minimum investmentyadeedii ugu horreeyay bay ka yimaadeen in haystay markaan ardayga ahaa but like today I'm not scared so adigana the same samee be smart ilaasho lacagtaada be smart don't invest quickly be smart invest wisely please lacagtaada haddii aad lose garayso anigu mas-uulka meehi kugula maanaan tirin every single time aan ku sheegay haddii aad strategy-ga isticmaasho ood lose garayso definitely waa trade problem waan ku caawinayaa but like haddii aad laakiin lose garayso lacagtaada adigoona raacin policy-ga iyo habka aan anigu dejiyey then I'm not responsible you're already responsible for your work adigaa shaqadaada ka mas-uula so be careful haye money management markaan ku trade garayn the lowest profit percentage aan ku xisaabtamo waa inuu 70 noqdaa ani mostly 70 maaha waa 85 markuu yahay 85 hadduu ka yaryahay ma trade garayo profitkaan ku xisaabtamo so 70 hadduu ka yaryahay don't trade bay ku leeyihiin professionalsku laakiin anigu 85 baan kugula talinayaa 85 markuu yahay uu samey okay if you're good at chart analysis ka baa lagu yidhi ood ku xuntahay money management I promise you you'll definitely lose how definitely haddii aad money management ku xuntahay laakiin aad trade-ka iyo saa loo analyze kanaad ku fiican tahay masalan $1 baad gashay halkii dollar 80 centi buu faa'iiday the second time $1 baad gashay halkii dollar baad khasaartay maxaad khasaare ku jirtaa labo halka dollar ee hore 80kiisii aad faa'iiday 20 cents baa ka dhinnaa so if you good at chart analysis and better money management ma badin kartid macnaha ma profit badan kama samayn kartid so you have to be careful marka hore okay haddii aad ku fiican tahay money management oo chartka ku xun tahayna sidoo kale oo khasaaraysa okay laakiin haddaad ku fiican tahay chart analysis ku fiican tahay money management definitely waxaad samayn kartaa xitaa lacag ku dhow $1 million buu ku leeyahay yes waad samayn kartaa but waxay u baahan tahay khibrad bay u baahan tahay waxay u baahan tahay waxa loo yaqaano waxaan ku dhahay training ama practice badan maxay u baahan tahay human instincts and sometimes suuqa isaga oo all the way sheegaya down
ayuu instinctskaygu ii sheegaan inuu suuqaasi absi caji sameeyo maxay ku timiday 1.5 years siday u dhan yihiin waxa ku soo qaatay anigu training please maadaama ood rabto gradekaagu kugu dayayo inaad maaragtay xoog u tirir kaliso be careful okay iska taxadir time badan waad u baahantay laakiin you can do it still anigoo professional isku haysta haddana 1.5 yearska waxaan make sure ka dhigay inuu waxani meeshaan doonayo u socon karo waan dhameeyey like mostly tradersku waxay dhahdaan ugu yaraan waa inuu 8 bilood 6 bilood 7 bilood ku jira qofku waa inuu ku jiri karaa suuqan khibrad intaa leeg waa inuu haysan karaa before intuuna lacaga badan inuu sameeyo ku xisaabtamin laakiin uu samayn karaa lacag yar oo $10 oo maalintii uu shaah ku cabo haddii uu la imaato inuu isku tijaabiyo xaq uu yeelan karaa si uu investment u gashado because investment waxa la yiraahdaa investment waxa weeye lacagtaada don't save it invest it like markaad invest garayso lacagtaada ku shaqayso that's business way inta loo fikirayo okay withdrawal request iskaaga okay haddii balance kaagu maanta oo kale $25,000 ka yaryahay waa inaad hal withdrawal request samaysataa every 14 days withdraw up to 25% of the balance waxay ku leeyihiin lacagtaada mar walba iska wada withdraw ha wada saarin waa inaad reeban kartaa ilaa 25% lacagtaada because of next trades baad u baahan kartaa next waxaad u baahan kartaa ganacsiyadaada dambe iyo investmentskaaga dambe hadduu balancekaagu uu ka badan yahay 25,000 send one withdrawal request every single day macnaha every 7 days macnaha 7 cishaba hal maalin samee markan hore maxaa lagu leeyahay 14 cishaba hal maalin samee imika laakiin maxaa lagu leeyahay up to 25% balance samee baa lagu leeyahay okay same money management maxaa kamid ah same profit percentage baa xagan ka muuqda same daily goals baa xagan ka muuqda same number of deals baa xagan ka muuqda same days counter both 50 days baa ka muuqda okay maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin a balanceka meeshan ku jira waa $100 b na waa balanceka meeshan ku jira waa $110 maxay isdheeriin $10 base isdheeriin like waa money management kan ku sheegaya haddii aanad money management samayn karin fadlan qalinka lagu qoraya laga daayo screenka qalinka lagu qoraya laga daayo screenka please balanceku waa 110 way marka maxay ku samaynaysaa please more profit on the future balance of 309 ayaad ku samayn kartaa lacagta hore increase $10 and deposit leads to $9 macnaha micnaheegu mar walba haddii increaseka iyo loo xisaabiyo maxay ku kala duwan yihiin oo lacagtaas ku kala baxeen faa'iidadani maxay b $3,400 noqotay xaggana $3,000 noqotay halkan waa $100 xaggana waa $110 مثلا $110 baan haystaa waxaan ku bilaabayaa tradekayga $10 anigu saasaan ahay strategy-gaan isticmaalaa saas because of $100 waa safety $10 baan lacag inuu sameeyo doonaya $10 baan dhigayaa waxaa ka sameynaya $18 waxaan dhigayaa haddana wuxuu noqonayaa $18 marka la bilaabo up to 30 something 30 wuxuu noqonayaa 30 saasuu noqonayaa I think 36 baad bilaabaysaa maxay noqonaysaa 362 way noqon kartaa profitkaada ku xisaabtamay like haddii waxaba aan anigu wada khasaara as a professional even though aan u baahanahay money management managementkii meeshuu ku jiraa sababtoo ah $10 iyo $100 baad meesha safe garaysay waxaad khasaartay oo profitkii maanta aad macaashtay so haddaad maanta hooyanayso sarartii u hooyanayso seexanayso waxaad isweydiinaysaa maxaa kuu qabsanay markay su-aashii isweydiiso experience baad leedahay maanta dambe ma wada dhigaye lacagteeda waan yaryaraysanayaa baad leedahay thank you okay intaasaa ku anfacaysa so maalin walba wax kuu soo kordhiso wax that's the key aad raadinayso how much should I deposit and more if you can haddaad able tahay waad deposit garayn kartaa to be able to use method 2 haddii aad doonayso method 2 aan idiin soo sheego kale inaad use garayso $100 ka badan baad dhigan kartaa usually na talahaan $100 markaan dhigayo
ayay ka faa'iido badan tahay khasaarahan ka fikiraya inuu ka yaryahay because of $5 aan dhigo kama walwalayo laakiin haddaan $20 dhigo $1 maanta 8 centi buu soo xareynaya so it's kind of confusing a bit laakiin wax aan ku oranayo jooji maaha if you can do it waxa muhiimad waa inaad lacag samayn karto okay marka waxa weeye si aad better goals faster iyo u gaadho lacagta dhigataa badi okay don't deposit the amount that will make you broke if you lose it hal deposit gareyn lacag haddii aad lose garayso aad broke noqonayso yani aad sheet oo kale da noqonayso lacag aan waxba aad ever ku soo dhacayso xitaa lacag aadan haynin ha deposit gareyn marnaba for example $300 baaba jeebka dhanba kugu jirta okay 500 mushaaraadkii baad soo qaadatay okay 500 maxaad samaynaysaa 100 ka mid a dhigo haddaad wada dhigto you would be broke even si kastood khibrad u leedahay danger ha ku gelin lacagta haddaanay safe ku hayn lacagta okay taana waa sidoo kale waxyaabaha aan ku sheegayo for example haddii aan maanta anigu rabo inaan trade yar sameeyo even though aan wada dhigayo ama aan wada dhigi karo ama aan xaq u leeyahay inaan wada dhigo this time waa idii sheegay marketka this type of time marketku waxa weeye directionka hor u soo bedeshaa even though resistance badan kusoo jiray buyna uu sii qabsanay si uu buy u galo aan doonay inaan kor u raaco okay money management baan dhigtay waan khasaarayba $1 ka soo qaad even though aan win garayn karo anigu maxaa khasaaray $10 baan khasaaray waxa kaliya ku fikiraya waxa weeye $10 aan soo celin lahaa laakiin haddii aan khasaaro lacagta ku jirta meesha ama $100 aan dhigo the $100 you can afford it marka hore 100kii soo celi baa meesha imanaysa how can you get it back markuu maskaxdaada stress ku furmo stress kuna qaybta ugu muhiimsan suuqan ka qayb qaadata weeyaan if you can do it stress uu ku helo ka bax suuqa coffee iska soo cab soo noqo refresh iska dhig you can do it bigger you can do it better the second time I'm telling you hata hal trade baan sameeyey that trade waa example maanta trade uma lihin mana samaynino so ka baxa haddaan sameeyey so let's get back to another account anigu ilaa 2 account baan leeyahay this one is for you actually yani sometimes idinku sameeyo kale baa jira oo qoran yahay all right let's see this kind of time marketku waa muhiim so you should deposit lacag aad awoodayso mar walba yes 70 days and you'll reach 10,000 waa run markaad isku celcelis lacagtaada la isku celceliyo gross profit iyo waxa intaad ka baxdo $10,000 ka badan waad ku samayn kartaa $100 okay that's why maxaa la dhahdaa hal important goal unaan u leenahay waa maxay goolkaasi sidaan uga dhigi lahayn $10 $10,000 $100 aan uga dhigi lahayn 70 days waa goal simple ah haddii maanta $100 aad ku shubato ood hal dollar u gasho waxaan sheedaa aad $3 gasho aad faa'iido gaadho $100 reserve ku ahaado maalin walba 2-3 trade oo quality la sameeyo I will show you inaad weekka soo socda ku samayn karto so competitions iyo waxaan idin sheegay baan samayn doonaa winnerku wuxuu qaadan doonaa every single week $100 waxaan u samaynayaa si aan idinku motivate garaya asxaabta because of waxaan doonayaa shaqadan binary and digital oo keli aan ku noqday in asxaab badan ay ka trade gareyn karto baran karto forex kanaad ku trade gareyn karto if I want aniga forex waan galaa some days waan galaa wallahi markaan u fiirsado qofku meel buu khibradiisa iyo aqoontiisa ku base gareeya so markaan u fiirsado sid aan forex lacag ugu samayn karo si aan binary ugu samayn karo isku shaqo maaha markaan binary ku trade gareynaya I feel like home inaan gurigeyga iska joogaan dareema because of waxaan u bartay si ilaa xad aan isiraadaba malaha suuqa laftiisa like scared baqayaba the first day aan bilaabayna aniga suuqa ka baqaya so what the other way around asxaabta waxaan idin sheegay money management inay muhiim tahay sida aad u manage gareyn karto lacagtaada
حتى lacagtaydii 199 bay maraysay. The second trade maxaa loo baahan yahay inaan ku trade gareeyo $7. $7 ayaan kugula trade garin doonaa the second trade. The second trade $7 baan samaynayaa. So if I lose $7, I'm still a winner. $2 baan weli haystaa. So you have to keep in mind mar walba lacagtaad samaynaysaa it makes difference horta. wax badan bay difference u samaysaa. suuqa inaan sell u galo weeyi, laakiin markaan sell garayo I have to do a lot more analysis because of xagga isagoo jooga ma geli kartid. 1 minute buu candle ku soconayaa. So haddii 1 minute uu socdo momentum possibilities iyo probabilities kaad ku xisaabtamaysaa they have to be precise. waa inay kuwa aad u taxadir badan noqdaan. So that second candlekaa kor baxay, candleka hadduu kor u baxo uu noqday bay ka dhigan tahay. So maadaama uu noqday chanceska uu haysto inuu hoos ugu noqdayo way fiican tahay because of some resistance buu gidaarka yar soo taabtay even though uu kor noqon karo. laakiin haddaan la isgaroobo maxaa idii sheegay I'm a winner of $2. Okay, so money management waa waxa ugu muhiimsan ee ku anfici doona. Okay, let's read my trade. wuu ku socdaa positionkii inuu dhaafo diidayaa. position waxaan dhigay aad u liita. Never mind. I am a winner, so I have to win again. Okay, let me show you marka. wuu soo noqonayaa. markuu soo noqonayo these tails haddaad aragto wuu soo dhamaystay weeyi. wuu soo dhamaystay weeyi. trend haddaad aragtona trend baa meesha ka muuqda. every single candles meesha jira. The red is more a lot more than the green baa ku qoran. So sell, but like sell markaan galayno we have to wait the second candle. Okay, because of this time hore idinku sheegay ma boodo marketku wuu isbeddelaa. So never mind. maadaama isbedelayo we have to put a different amount of money. Money management it's important. waan kuu sheegay hadda kor buu u baxay, kor buu sii socon doonaa suuqaasi because of this candle waa neutralizer. inuu wuxuu doonayaa labada suuq balance gareeyo markuu isbedelayo. in binary xagga forex ay analyze gareeyaan the whole day, the whole time, the whole saacad. You have to analyze, you have to be able to analyze. hadda suuqaas kor buu ka soo noqday. You have to be able to analyze suuqani inuu ka iman karo meesha loo yaqaano 1 minute. saa idii sheegay 1 minute, 2 minute, 3 minute ka soo socda halkuu tegaya analyze gare si aanay ku wareerin candlesticksku. xaggan ka dhigo 1 minute. Okay, candle time period kaaga 1 minute ka dhigo because every single candle kuma wareerinayo. marka aad 1 minute ka dhigayso halkan calaamada tigta interval automatica iska bedel because of haddaad tig ka dhigto timekii uu isbedeli time intervalkaagii wuxuu isbedelayaa marketka. hadduu wuxuu taagan yahay seconds times so it's kind of confusing. 1 minute ka dhigo iska qaad. let's trade marka. my second trade so far $20 baa kasoo bilaabay hadda intaa idii soo gelin. this time I will sell, but sidii imika oo kale inaanan stupidity ku dhaqmin baan u baahanay. So I have to watch out. anima indicatorska aad ii maamulo mise marketka ii maamula both labada baan u baahanay. ay ka waran technical analysis haddaan ku sameyno ama aan idhaahno noo sheeg marketku maanta xaguu marayo. the last market aan ku jiro waxa weeye Australian dollar iyo JPY. Australian dollar iyo JPY technical analysis ma leeyahay hadda currently definitely. halkuu maraya technical analysis kiisu sell. analyzing kan idin sheegayna muxuu ahaa waa sell. okay, okay, marka sell aan ka dhigno. as I told you gidaar buu soo taabtay. sababtaan uga baqayay inuu sii socdona waxay ahayd kaas inuu soo taabto ayaan ka taxadirayay because of the second uu soo taabto the second uu kor u baxo suuqu. indicatorskuna hoos bay sheegeen. how many indicators do I use? let's see. indicatorskan isticmaalo maxaa kamid ah? waxaa kamid ah indicatorskan isticmaalo templateskaygaan galaya
MACD iyo stochastic oscillator qiyaastoodu waa normal waa random laakiin CCI iyo MACD markay tahay qiyaastoodu waa 14 meesha sida ku qoran iyo 12 26 9 waxaa idii soo diraya trend intensity markaan isticmaalayo trend intensity moving average 14 ah oo maaragtaynay sidoo kale SMA ah iyo mid WMA ah oo aan ugu talagalay 144 inuu noqdo si uu marketka u analyze gareeyo uuna yahay time periodkiisu inuu sell neutralize gareeyo ayaan use gareeya so waxaan sameeyaa trend intensity index markaan isticmaalayana waxaan ku isticmaalaa 50 periodka small periodka waxaa ka dhigaa 40 okay chop zone baa jira chop zonku waa kan chop zonku waa zonka wuxuu kuu sheegayaa color kasta uu sameeyana suuqu waqti walba uu bedelanayay ayuu kuu sheegayaa iyo center of gravity labada indicatorna waa isku isticmaalaa every single day way anfacaan so every single day mid ka mid ah ku anfici kara okay let's see this one is up any moment buu soo dhaadhacayaa that time markuu soo dhaadhacayo any moment maxaa kuula gudboon iska sug because of buy buu u badnaayo buy u gal haddaad tidhaahdo you're gonna end broke okay sell inaan u galaan rabaa laakiin weli signal ma gelin because of gidaar buu soo taabtay I can't sell my amount my money because of way adag tahay buy haddaan u galana halka uu joogo iyo signalska uu hadda indicatorku bixinayo buy bay u badan yihiin laakiin weli sellka kama dhammaan maadaama uu 1 minute yahay laakiin let me buy my money no matter what because of ma dhammaystirna buygu muxuu u badan yahay sell muxuu sii haysanayaa sell muxuu sameeyey sell signalka uu bixinayana waa buy isbedelaya so analyzing kan waxaan saan u samaynayo simple weeyaan maalintii baan soo galayaa live session anigoo trade garaynaya si aad iiga daawan karto anigoo live trade ku jira una faa'iideysan karto weli waxaan filayaa suuqiis hoos buu iigu socdaa let me see okay the last moment buu soo noqday down market maadaama the last moment igu soo noqday I double my amount anigoo ugu talagalaya okay weli sell kama dhammaan every signal aan arkayo sell kama dhammaan buyna wuu socdaa so what should we do markuu buyna u socdo signalku aanu ka dhammaan usually waa laga baxaa suuqa that time because of these little candles u dambeeyey kuma guarantee garaynayaan guushaada second trade kaad samayn doonto okay buygii hadduu buy pure ah inuu bilaabo rabaa laakiin waa inuu candleka chop zonka kaasi rirka uu isku bedelaa colorkiisu within the coming seconds candleka cusub ee bilaabmayay it should change hadduu bedeli waayo weli sell buu sii haystaa that market so be careful all right good position buu ka bilaabay okay laakiin weli ma sameyn oh this option has not been purchased because of profit range ooh okay never mind I bought my money haddaba maxaan iibsaday $20 baan iibsaday waxay laakiin u dhigmaysaa lacagteedaasi $15 okay let's wait for my $15 usually the time day aan wada trade garayn doono sidanu ka awood badan doonaa suuqu sometimes wuu kugu rogrogmi doonaa so this trade waxa weeye habeenkii waxa bata resistance zone-kan yar iyo usually kuwan kale aan ku trade garaynayno so imika that position markuu saa u socdo weli sell buu kusii jiraa kama soo gurin so sell buu sii noqon karaa the candle buyna wuu noqon karaa laakiin adigoo candle casarkee sideed u iibsatay inaad isweydiisaan baa laga yaabaa ama ad u iibisay lacag waxaan u iibiyey because of marketku iskuma kaa sheegayo the exact time inaad iibsatay tahay let's see this time maxay sameeyaan tradersku okay lacagtaydii waa soo celiyey markaan soo celinay kalsooni baa meesha jirta laba trader isku xigaan khasaarnay laakiin money management meesha kama maqna lacagta aan khasaaray lacagta aan wingareeyba waa lacagan suuqa maanta ka helay so ha ka walwalina lacagtan khasaaro because of lacag suuqaad ka heshay marka hore baad heshay inaad sii invest garaysahay
business kun bay ku sii baraysaa. So as we can see timekaygu uu dhow yahay almost 30 daqiiqo videogu socday. YouTube kuna galayaa sidaa darteed sessionku wuu koobmayaa waanan dhammaynayaa sessionka. intaa wixii dheer su'aalaha tomorrow baan ka jawaabayaa. waxaa jiri doona waxa loo yaqaano waxaan ku raadayay that competition baa jiri doona, tournaments baa jiri doona, si teamka uu u wada dhismo. titleaan idiin samaynayaa. qof walba wuxuu yeelan doonaa kama tirsanidina arday meesha iska joogta, laakiin traders baa tihiin. as a trader best iyo minimum iyo maximum account iyo amount iyo historygaaga iyo everything oo record aad ku samayso inaan kula qiimeeyo eed xaq u leedahay aan kula eego. That's it. My time's up. I think tonight waqti fiican wada qaadanay. Every single night na wuu jiri doonaa sessionku inshallah. Every single night maaha laakiin labadii habeenkii habeen dhaaf buu jiri doonaa. I mean laakiin YouTube channelka waxa laga yaabaa inaan maalin walba soo galo, sidoo kalena live session 20 minutes soo galo maalin walba. laakiin habeenkii cashirkaan bixinayay waa every 2 days. marka maalin aan galo maalinta labaad oo maqnaanaya maanta saddexaad baan galaya. every single 2 days. su'aalaha hadda kama jawaabi karo. waxa weeye insha Allah waxaad samaysaa schedule iyo money management baa idin dhigi doona. labada la'aantoodna waxba ku qabsan maysaan. lacagtan aan samaynayd arkaysan waa lacag suuqa marka hore aan ka dhacay oo aan ka helay. so I'm not caring haddaan maanta $50 oo kamid khasaaro, because of anigu waxa keliya inaan khasaaraan xaq u leeyahay waa $20. $20 as you can see 200 baan maraya. so I don't care about the rest. I only care about $20. laakiin as an entrepreneur you have to save. hadda waxaa idin tusayaa simple safety baan tusayaa idinaan fili doonta. iminka 200 baan gaarsiiyey. maxaan sameeyaa? my second waxa weeye move is this. qalinkaa laga daayo shaashada fadlan. okay, my second move is this. maxay tahay? withdraw amount. all right, imisaan la baxaa? 100 ba ila bax. okay, 100 na igu daa because of 20 baan la soo galay. I withdraw my money. okay, $100 baan la baxay hadda. money management, that's money management. si aan lacagta ugu sii trade garin in progress buu kuli 100kaasi. saasaan maalin walba cotton every single time, every single second. usually markaan perfect money kula baxaya waxaba saasaan kula wada baxaa. $100 baan hadda saaray, 150 maanta haddana daqiiqada kahor baan saaray. that's money management. okay, so you have to mar walba inaad funds send buu hadda igu yiri, lacagtii waan kusoo dirnay buu igu yiri. so waxaa laga yaabaa inay 2 days iga soo maqnaato, laakiin anyway way soo gaaraysaa because of it's my money now. maaha suuqa lacagtiisii. xisaabteeduna aniga mas'uuliyaddeeda. so the second time lacagtii aan suuqa ka saaran baa la soo noqonayaa. taas unbay la xijaala iga galaysaa. so as a business be an entrepreneur. okay, caawana intaas inoogu ekaan doonaa sessionku. I hope inaad insha Allah faa'iidaysatay. habeen wanaagsan.